guddigan waxa weeye hadallo badan baa madaxdiisa ka soo baxay qofka ugu badan oo ka hadlana waxa laga yaabaa inaan aniga ahaa kuma haysan nacayb gaar ah guddiga shaqo fiican baan naga wada dhaxaysay laakiin waxaan aragnay mar gudoomiyaha guddiga ee Mareykanka joogtay hadallo ka soo yeeray oo runtii kaseen xoogan aan ka muujinay oo la xiriiray ayadoo eedeynaysa gudoomiyuhu dawlad goboleedyada waliba madaxdooda sii tilmaamayso oo si tafaasiil oo dhaadheer iyo ayadoo xisbiyada eedeynaysa marka waxaa moodaa arrimihii siyaasadda oo hadda loo lahaa dhexdhexaad ka noqdaan inay guddigu qaarkood xubnihiisu ay lugaha kula jiraan arrintaas waxaan rabnaa waxa si dheer in gudoomiyaha guddigu ay madaxweynaha wafdigiisii ka mid ahayd New York tagay guddiyo waxaan ognahay madaxweyne ay la casheeyeen xilka ku waayay casho ay la cuneen bas sidee dhexdhexaad idinkugu arkaynaa haddaad madaxtooyadiina degantiin madaxweynihiina la safraysiin waa maasantiin maxaa ula fadhiisatay meesha hadday tahayna hadda meesha Soomaaliya ku dhigan tahay madaxweynaha kaliya ma leh qof kasta Soomaaliya leh waa fariisanaya kursigaasi saa adiga xildhibaan iigu tahay oo asagana madaxweyne iigu yahay prime ministerkuna uu iigu yahay gudoonka iyo baarlamaankana aan madax noogu tihiin adinka la rabaa inaan idin dhaxayno oo xaq aan idin soorno kitaab jaamacahan ku maray waligay hal mar aan kitaab jaamac maray markii waxay ahayd baarlamaanka bidaariyo guddiga waa ila qabaan haddana waa idin qira ilaahay wajigiis waxaan xaq ahayn inaan ku shaqeynin haddaan xaq daro ku shaqeyno Allah naga qabto haddaan xaq daro ku shaqeyno su'aalahaada waa ka wada jawaabaa u maleynayaa